ku-xigeenka Puntland saddexdii maalmood ee la soo dhaafay ku sugnaa magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari ayaa maanta u amabaxay safar uu ku aaday dalalka Imaaraadka Carabta iyo sidoo kale Malaysia. Generaal Cabdisamed Cali Shire ayaa intii uusan ka duulin garoonka diyaaradaha ee magaalada Boosaaso war kooban oo warbaahinta siiyay waxa uu kaga warramay safarkiisa iyo meelaha uu ku wajahan yahay isagoo sheegay in dalalka uu tagi doono uu aadi doono arrimo ku aadan danaha Puntland isla markaasna wada hadallo uu la soo qaadan doono. Ilaahaydan ka dhigo maanta waxaan jeclahay inaan socdaal hawleed dibadda ugu baxo. Waxaan jeclahay innaka oo nabada anigoo nabada iyo idinkoo nabada inaynu Ilaahay isku soo celiyo. Wararka qaar ayaa tilmaamay in howlo caafimaad ay qayb ka yihiin safarka uu madaxweynuhu ku bixi doono gaar ahaan kan uu ku aadi doono dalka Malaysia. labadii maalmood ee madaxweyne ku-xigeenka Puntland joogay magaalada Boosaaso ayuu booqday dhowr goobood oo magaalada ku yaala isagoo oo kulankiisa sidoo kalena kaga hadlay arrimaha ammaanka isla markaana dadka Puntland ugu baaqay inay ammaanka si wadajir ah uga shaqeeyaan. Waxaan jeclahay bulsho weynta reer Puntland inaan ku booriyo inay fiiro gaar ah u yeeshaan nabadda dalkooda inay u yeeshaan waayo waxa weeye haddaan nabad la helin horumar la higsanaya ma jiro.